بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal kusoo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii la magac baxday Ismaandhaaf Aduun sheekadan waxa qoray hal abuur Cabdulqaadir Raxmad Shaafici waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqafaar Happy dhageystayaal inta aan bilaabin qaybta labaad ee sheekada aan mar kale dib idin xasuusiyo qaybtii hore halka ay ku dhamaatay qaybtii hore ee sheekada waxay ku dhamaatay ama inoogu ekeed dhageystayaal sheekadii jacayl ay ka dhaxaysay ayaan le waxay isugu soo biishootay jacayl xanuunsana oo aan sinaba ku kala maarmi karin jacaylkaasi oo la magac baxay jacaylkii xanuunsana haddaba qaybta labaad ee sheekada waxay inoogu bilaabanaysaa sida tan waxa haweenkaasi wajigeeda qurxoon ka muuqday farxad yaabaneed waxay la faraxsaneed jaceylkoodii sanad jirsaday habeenkaas isla markaana waxay la yaabaneed nafteedii habowga ahayd ay timid goob aysan ku tarbiyoobin imaanshaheeda oo aysan weligeed ku hamiyin inay timaado goobtaasi oo kale ayaanle waxa uu dareemay in ay farax cabursanayd gacmihiisa ayuu ku qabtay gacmaheeda markaas ayuu ku soo dhawaaday waxa uu ku yiri macaan maxaa kugu dhacay wax baa si ka caawa uma faraxsanid sidii hore amaba sidii aan ka filayay inaad u faraxdid caawa oo kale macaan horta ma og tahay inay caawa tahay sanad guuradii koowaad ee jaceylkeena ugubka ah habeenkaasi kuma aysan faraxsaneen goobtaasi ay dhex yaab fadhiday laakiin waxa ku soo qasbay ayaanle say u wada farxaan habeenkaas ayaanle qudhiisu ma ahayn wiil caadaystay ama waxiiseeyay tagida goobahaasi oo kale laakiin dabaaldegii farxadeed ee jaceylkiisa sanad jirsaday darteed ayuu halkaasi ku soo habaabay goor uu farxad wareeray waxay ku soo eegtay ayaanle indho jaceyl markaas ayay u dhoola cadeysay waan ogahay walibana sida ay tahay ayaan u ogahay macaan haddii aan ogaan waayo sanad guuradii jaceylkeena macaan wax kale ee aan ogaan lahaa waa maxay waan ogahay aad iyo aad ayaan u ogahay macalinka waan ogahay see kaa noqotay yaakhay markaas ayay yara qosashay isaguna ka daba yara qoslay dabeecad ahaan waxay ahayd gabar aad u qalbi furan oo aad u kaftan badan qudhiisu dabeecadiisu kama aysan liidanin dabeecadeeda waxa uu ahaa wiil aad u qalbi furan oo aad u degan balse aanan kaftan badnayn waxay sii waday hadalkiisii si uu u iloosiiso ayaanle su'aashii calaamatul su'aashu saarnayd ee uu weydiiyey isla markaana ay u farax geliso maadaama ujeeddada ay habeenkaasi u soo baxeen ay ahayd inay farxaan macaan miyaad og tahay inay caawa adiga ku dhacatay amaba ku ahaatay wuu dhoola cadeeyay iyaduna way dhoola cadeysay maya ma ogi sidee bay iigu dhacatay ama ay iigu ahaatay ma ogid miya sida ay kuugu dhacatay habeenkan caawa ah warniyahow way kuu dhacatay caawa si fiicanna waad u ciidaysaa ee dib isugu noqo bal maskaxdaada hal mar dib u celi xasuustaada dheereed kadib waxaad heli doontaa sababta ay kuugu ahaatay habeenkan caawa ah wuu yara dhoola cadeeyay kadib su'aalo xambaarsanaa sababta ay ugu dhacatay ayuu si isdabajoog ah u weydiiyey maskaxdiisa nasiib darro waxay maskaxdiisu siisay jawaabtii ugu dambaysay oo ahayd inaysan xusuusanin sababta ay ugu ahaatay markaas ayuu yara qoslay iyaduna way la yara qosashay macaan waan soo saari waayay sababta ay caawa igu ahaatay ee ii sheeg adigoo raali ah waxay ugu jawaabtay waan diiday kumana sheegi karo ayaanle ayaa yiri waan ku baryayaa ee ii sheeg waxay ugu jawaabtay maya ituug ama ha ituugin ma kuu sheegayo ha kugu taagnaato macalinka markay kaftamayaan ayay ku kaftami jireen ayaanle afreer xamar maadaama ayuda ahayd reer xamar isaguna uu iyada ka dambeeyey oo uu aad u jeclaa macalimada iga gambiso oo ii sheeg sababta ay igu dhacatay aan kuu duceeyo haddii kale waan ku habaar aadan weligaa ka soo kasban ma adiga ayaa ay habaari kara habaarkaaga lama aqbalayo ma aabahay ayaa tahay mise hooyaday ayaa tahay ayay ugu jawaabtay sidee baa loo aqbalayaa habaarkaaga balse ayaanle ayaa ugu jawaabay
labadaba ma ihi balse waxaan ahay saygaaga mustaqbalka waadna og tahay sayga mustaqbalku inuu ka habaar kulul yahay qof aanan mustaqbal doon ahayn cabaar ayay ka warwareegtay inay u sheegto kadib waxay ogaatay inay sheekadu taagneyd habaar waxay ahayd gabar aad u neceb habaarka markaas waxay go'aansatay inay ka baabi'iso wareerkii haystay saygeeda mustaqbalka isla markaana ay ka baxsato habaarkii wareersanaa ee ku soo socday markaa ayaa waxay tiri sababta ay kugu dhacatay waxaa waaye caawa waxaa isugu kaa darsoomay 3 ciidood ciiddii sanad guuradii jaceylkeena ciiddii carafo iyo ciiddii sanadka muddo saacad ah ayay kaftamayeen kadib ayaa waxa ay eegtay masraxii hoteelka oo aad u shidnaa waxaa halkaasi xaadir ku ahaa Farax walbahaarsanaa oo ka ag muuqday dhalin u gaabgaabsatay inay soo bandhigaan ciyaaro ku kala tirsanayay raab iyo ciyaaro kale waxay isha la raacday dumar waaweyn oo halkaasi ku ciyaarayay inta ay la yaabtay haweenkan waaweyn ee halkaasi ku ciyaaraya ay aad u dhoola cadeysay waxay soo eegtay Ayaanle si ay u tusto islaantaasi ama dumarkaasi halkaasi ku soo bandhigayay ciyaaraha Ayaanle bal eeg islaantan waalatay war bal islaantan ila eeg islaantan hooyaday la eeg maxaa waalay oo maanka ka qaaday maxaa halkan dhalinta qaarkoodba ay ka xishoonayaan inay yimaadaan keenay waaba hooyo ee may gurigeeda iyo carruurteeda ku ekaato Ayaanle ayaa isaguna eegay islaantii loo tilmaamay kadib ka daba yaab dhoola cadeeyay ayaan ma ogi waxa keenay halkan maxaa islaantan weyn halkan keenay xishoodka laga qaad waaba laga qaaday xishoodka ee ayuu sii raaciyay isla markii ay ayaan soo hadal qaaday hooyo waxa gashay xasuustii foosha xumeed ee ay aadka ugu daashay inay ilowsiiso oo ay ka tirtirto xasuusta nolosheeda balse ay ku guuldareysatay inay ilowdo mar walba oo la soo hadal qaado ama ay aragto hooyo waxay xasuusan jirtay xasuustaas waxay maskaxdeeda qasab xasuusataa gumaadkii foosha xumaa ee sida ba'an loo xasuuqay qoyskeedii ay ka dhalatay sanadkii 1980kii ayaan ku dhalatay caasimadii la xumeeyay walina aan la xaal marinin ee Xamar Caday waxay ahayd yaraantii qoyskooda waxaa ka weynaa 2 wiil iyo gabar oo la kala oran jiray Xasan Xuseen iyo Nimco waxay deganaayeen xaafadda Boondheere waxay ka dhalatay qoys isku duubnaa oo ay si horumar leh isugu habaysnayd noloshoodu ayaan aabaheed waxaa la oran jiray Sahal wuxuu ahaa macallin wax ka dhigi jiray jaamacadii qurubka loo fiiqday ee Gahayr hooyadeed waxaa la oran jiray Suuban waxay ahayd macallimad dhigi jirtay maadada taariikhda kana mid ahayd macallimiintii iskuulkii 22 Oktoobar ayaan caruurnimadeedii waxay ku soo kortay nolol ku salaysnayd hadhicin hana jabin ee sare u hanqaad maadaama ay iska dhaleen 2 macallin oo aad u daneynayay caruurtooda si ay isugu filnaadaan mustaqbalkooda dhow nasiib darase ma aysan iscalfan inay ku sii korto noloshaasi qiimaha iyo qaayaha xambaarsanayd sanadkii 1991 markay Muqdisho ka socotay dagaaladii ayaan ku mashaqoobeen qoyskii ay ka dhalatay Ayaanle markii uu muddo daawanayay wacdarihii naxdinta lahayd ee lagu soo bandhigay masraxii shidnaa ayuu soo jeediyay wuxuu arkay ayaan oo murugo xasuus ilmeynaysa isaga oo aanan iskala garanaynin ayuu la ilmeeyay markaas ayuu soo qabtay labadeeda gacmood kadibna ka dhunkaday uu soo kiciyay kadibna oo hintii la soo galeen baabuur Langurusa ahaa oo uu watay Ayaanle kursiga dhexe ee baabuurka ayay ku fadhiisteen Ayaanle labadiisa gacmood ayuu ku soo qabtay qaarka kore ee ayaan kadibna dhacdiid u soo saaray qaarkiisi hore ee uu ku murugo dhagay ciil iyo caloolyow ayaa horbooday qoomamo iyo talow maxaa loo xasuuqay qoyskii ay ka dhalatay
ayaan oohintoodii baa isqabatay oo ilmadoodii ciil baa isgaartay. cabaar kadib waxay istawiyeen in aynan sinaba u soo celin karin naf baxday si walba oo loo jeclaa ama loogu murugoodo. qoyskii ay ayaan ka dhalatayna ay markaasi u bannaanayd in loo albaryo. wuxuu dul seexiyey dhabtiisa kadib ka baabi'iyey ilmadii. markaas ayuu qiiro eegay ayaan isagoo qiiro ilmeynaya. gacaliso in badan ayaan isku dayay inaan ku ilowsiiyo xasuustan aadka u walbahaarka badan ee ka mid noqotay noloshaada. runtii wax aan sameeyo ma garanayo si aan kaaga baabi'iyo xasuustan aadka ii dhibtay. si walba ayaan isugu dayay in aan ku ilowsiiyo xasuustan xanuunka badan ee sida aan la soo koobi karin noloshayda u dhibtay. nasiib darase waxaan ku guuldaraystay inaan ku ilowsiiyo. cabaar ayuu u sheekeeyey si uu u ilowsiiyo xasuustaas xanuunka badneed ee ku beerantay nolosheeda macaan. tan iyo carruurnimadeedii wuxuu hadba sheekooyin xiise leh ugu sheekeeyaba. nasiib wanaag markii dambe wuu ku guulaystay inuu ilowsiiyo xasuustaasi la walbahaar qaybsatay nolosheeda. kadib way dhaqaaqeen. ayaanle inta uu baabuurka ku dhex maaweelinayay ayaan waxaa baabuur ka dambeeyey oo nuuciisa ahaa saarnaa nin aad u foolxun oo aad ugu xumaa. sheekadii dhex maraysay ayaan iyo ayaanle indhihiisa cascasaa ayuu ku gubayey tan iyo intii ay dhaqaaqayeen. isagoo aad ugu xumaa sheekadii jacayl ee dhex maraysay ayaan iyo ayaanle. dhegaystayaal intaa haynugu ekaato qaybtii labaad ee sheekada. ciddii ay seegtay sheekadan ama doonaysa inay mar kale dhegaysato waxaad mar kale dhegaysan kartaan 5 galabnimo. sheekadan waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqafaar Habya. intaynu ku kulmi doono sheekada xigta waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.